inuu shaqaysto ma rabo inuu gacan taagta labis suu gacanta utaaganay gacmihiya tii uu taaganaya dheeraatay ma wada sinno marka saan waay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد سومالد waxaan leeyahay waa idin salaamay bacd salaan dad badan su'aalo soo weydiiyay saaxiibkayga xirsi oo janaalkan iska leh oo commentiyada oo yani wareysi yani ugu soo qoreen iyadoo la soo wareyso waxyaabaha dhowr su'aalood kulley maaqan asaa ii sheegi doono kulley weydiinayo wuxuu ugu yiri erga waa la soo diray wax walbana waxaan kaa rabaa si reality ah oo ilaahay ku ogahay inaad u sheegtid marka waxaan jeclaan lahaa marka su-aal walba la weydiiyo inaan ka jawaabo hadduu ila yiraahdo waan weydiin kartaa xirsi waqtiga aniga waxaan ku qaataa ilmihayga la qaataa oo waqti aad siiyaa ayagaa iga mudan inaan waqti siiyo markaan shaqeynayna waxaa waaye waaba shaqeynayaaba marka mar walbana waxaa waaye markaa ilmo aad leedahay markaa bixis oo kale waxaa leedahay aabo irid qofaa ka furina aabo haddii la soo garaac waxba cabsanina intaasba yani dardaarankaas horta mar walba ma iloobo haddii aan kaaga jawaab horta waxaa waye magaalada aad ay ugu badata horta qofka yani aan waxba yani isu kalsoonayn soo ma qofka aan dad kale inuu baryo u nool laakiin naftiisa aan meel iska soo saaray waa buuxa waa badiin hebel aan dhihi karaa wax maqani kari afka aan cunayo nagadaa shay ma waayahay waa dhaafay horta waxa waaye qofa waxaa leedahay nin kaal imaw shaqeyso kaa ila shaqey aniga qaybtii anigaan qaadanayaan ku siinaa so aniga shaqooyinka kale iska badan waxaan leeyahay bal qofkaan saaciday laakiinse qofkii saacidays ma rabo inuu shaqeysto ma rabo inuu gacan taagta labis suu gacanta utaaganay gacmihiya tii uu taaganaya dheeraatay ma wada sinno marka saan waay bo idib noo soo dhahay saanay noqoto shaafto okay baryadu waxay ku xuntaa kuu sheegaa hadda kahor waxaa dhacday inaan saaxiibo nahay aada u wacyiilnaa ana shiidka adduunka ahay magaalada nairobi ka dhacday ninkii saaxiibkayga ah marka wa alaabaa usoo degaan asaga naag maan wax kale qof wax ma siiyo ana marka waxaan gaadaa marka gabar shirka usaarantaan gaadaa markaas ustaad talide waxaan rabaa nabaashi xaalkaa shaqigu ah ilmiyaan rabaa inaan jikin injis wax isku gaday bal afiiri ma gabadha joogto adi waxaana ii qalmin isoo turaa oo isiiyaa yah laakiinse markaana qof la joogin yani waxba kuma siinayo marka baryada horta way xun tahay qofka inuu shaqaystaa fiican hadduu shaqaysto waayene de waxa waaye maalmo gacanaa taaganaysa hal gacan ku dheeraanayso lamana soo celin karo gacantaas waa tagtay maxaa kula talin marka dad gacanta dheeraatay maxaad kula talin waxaan kula talin lahaa haddii aad tolkaaga baashita waxba haysanin tol waa la yaqaanaa tolka laguu sheegay mataqaade tolka laguu sheegayo haddaad qabiilka hebel waaye qabiilkaa tiraado nothing hebel ata waxba matid sababta waxaa waaye adi qabiil ha ku tiirsanaaw ummadaan ilaahay uuntay ku tiirsanaaw qabiilkaaga goormay ku imaanaya mataqana wax ku qabanayaan markay dhimatay laba neef geel lagu qalaa marka waxaa leedahay qarash badan baxayo waxaa leedahay dadna ha isku halay nafta isku halay video ma lama maalmo kalena neef lo ama aryaala lagaa oo baashi oo quraan akrisa oo laga samray intaas ma qarash baxay laguma siinayn marka adiga aa joogtay oo shiidka ahayd oo gacmaha ridinaysa markaan waxaan ilahaa intaan dhiman wax isiiya
wixii dhimashada haddaan dhinta geed saarane shaxaada usoo doonto xaalka aada igu xumaay guriga waxba ma oolin maalinta waxaan ogaaday ibni aadan barihiisa inay ay xun tahay haye bas dhowr mara shaxaada marka wuxuu ciyaaraya booni meel farmashiyo booni ku ciyaarayay anoo arkay wuu orday farmashiyo gale iskifaala waa taqaanaa meesha miiska hoostiisii ma geli karee qayb dambe dabadiisa banaanka taala marka waa gartay waa fiiriyey waxaan dhahay ninkaan cabaas ma aho dabadaan dabadii cabaas waayo haye dee waa xishooda de inaan saan dhaho qof nin oo halahan u qarsoon ha oo inta kale xariin waaye yaa inuu cabaas yahay anaa ogahay aan dhahay cabaas iska soo baxa anaa maanta waxaan u wada inaan wax ku siiyaan dhahay fad hore kasoo bood may walahi miya meeshaan kiinin ku cabaay meesha awa kiinin ku cabaysa galaas iyo biyo wax uma jeediyey haye baadal waxaan dhahay xaalka igu xun waa xanaaqay intaas ma isoo bixisa yiri anaa wax u baanu yiri wax makaila marka baryadu saasay ku xun tahay laakiin inkastoo la yiri qof caruur haysto nasa ma aha haye ha yani waxa waaye xishoodka ka tagayo sababtoo ah ma fiirinaysid waxyaabaa qaarku fiirisa waxaad fiirinaysaa ilmahaaga baayida hayso gurigaaga maa kasoo tegaysa qaabka ugu soo tagtay filinka ka hor yaallo ha marka waxaa ku xun markii qofkii aad dantaad u sheegid u kor wallahi xumaayo ko waa ka dhegeysanaa maxaa iga dhegeysanaya marka hore marka wax maayla maxay ugu soo koobaysa marka calooshii dhanku aan hortaada kani miis kuu saaray ha maadheeda baasha wallahi nafsiga xaalkayga igu xun ilaahay xaalka kugu xumeeyo hana kugu sii xumeeyo ilaa warkaa iga dhegeysa waa iga dhuuxday soo daa su-aalaha kale raalli waa xanaaqday marka ma cabaaska soo xasuustano marka waxaad leedahay muxuu ahaa ah inta qof bini aadan aad baryi lahayd adoo ilaahay baryaa ku dhaartay wallahi ilahay bada ku dhan sababtoo bini aadan ilahay kuma hoosgeeyo amiin bini aadan hadduu ilaahay ku hoosgeeyo waxa waaye waa ku dhamaatay waxaa noqonaysaa qofaa yani yani shaqada qaban laheydbo ma qabanayso waxaad is leedahay shaxaadkaaba maanta aad is leedahay su-aasha kalsooni inuu isaga uu kalsooni muujin waayo ana waxay ila tahay inuusa baasha uusan baeen yani wax jira uusa ahayn sababtoo ah kalsoonidu waa shay qaaliya oo muhiima marka aad kalsooni isu qabin dee wax dhintaa lamid tahay ma arkin oo fiiri nin waa qof oo ikisha oo afka dhan soo dheeraya marka afka daboolaya ma daboolmaya ka intay soo fuulayaan adduunka anaga ugu qurux badan oo kuleeyahay maxaa keenayo kalsoonidaa keenayso asagoo og in hadduu afka isku qabsado irkii intay imaanayaan ee dawoolmeen oo tixsiisa oo ka dhahayo ya oo wuxuu kuleeyahay anaa ugu qurux badan kii oo biri ku xirtay ka waran dadka waxaa leedahay naftaada hala aamino si ninkaas ronaldiyo kan isku kalsoon inta ustaadkeena inta kasalaama seertada inta kasalaama iyo waxaa kaloo kasalaama waa kii cadnaan oo gurigiisa aan maanta wax ku duubanayno oo noo fasaxay aad oo maasta cadnaan haye inuu ilahan tala saartaa waxaa waaya rabbi tala ku filan ma og tahay waxaa cunays adigoo fiiri weli ma aragtay adigoo lacag a haystid waxaa cuntan a weysan tahay anigoo oo baash adigoo lacag haysto meelaa saxat a weyse way dhacday sababtoo ah anigoo joogo Bombaaso waxaa ila socday DJ-ga lacag 100 kun oo ka imanaya ha aliis hormasi arooski oo $1 camal $1 waa haye qaybta kale waxaa qaadanaa markaa meesha tago waa gartay markii $1,000 iyo 20 kun shilin $200 $200 ay wujtay hoteelada ilaa holli waa buuxaa arooskan meel walba looga yimid arooska ugu shidnay oo ahay waxaa aroosay saaxiibkay inaan saaxiibanahay gabadha aroosay waa gabar qaraabanahay halkaan ka wada salaama marka lacagteena waxaan ku weynay meel la seexano marka waxa waaye lacag wax ma tartee mar walba ilaahay tala saaro iskuna kalsoonaw ha isdhiibin nolosha isku dhiibin laisma dhiibo hadda fiir aniga ijadiin labadana ka madooba adduunkana waa farxad waa qoslaa aniga
ya midaa ogaane ya meeshan maalin hoos maqaadi soo fadhiistaa tala isi maxaan tala ku siiyaa seen ku baabiya u dhahay anaaba iska baabi'in waysa adi kaaga baabi'inaan dhani ya anigaaba iska baabi'in lahe se adi kaaga baabi'ina maalin iska baabi'iyo ha soco wallahi aniga waa soo maray waxaan soo maray Ethiopia anigoo durdur speakerada u qaadayo waa soo maray ee tibish ugu dhacday heer waxaan gaaray mara baati yarisin soo qaato markaa qof cabo xinjira iga soo bixi jirtay markaasaan baati inta ku duubo aan jeebka ka jiray habeenkaa dhaqi jiray baatiga markaan waa kala fujinaa waa dhaqee noloshaasna waa soo maray iyadana kadib maxaa ilaaha qadaray dadkii samaacada u qaadayay maanta qaarkood nool waxa waaye maanta anay ii shaqeynayaan nad sababto ah waxaa faanin weyna kamid ahaa faaninta anay ii shaqeynayaan anaga wada shaqeyna horta Nairobi si ku imaaday Nairobi xoogo ku dhibtooda marka maasha Allah asxaab badan ay gacan qabatay Abdu Casiis saay ilaahay ku mandaraade dad badan waa la badan yahay marka nolosha waxa waa daas laisma dhibaataas dhibid adaa uma dhibanayo marka waxaa leedahay wax walba oo dhaco waad keenso cagaha dhulka ku hay moos oo qof moos fiiqan hadda aragtid oo tuurayo boortiyeera ugu laacibsan noqo ila gaajo kuwaas mugtahay dhulyo gaarin moos qolofiis haddii aan ku sheego dhalinyaradaan sina waxay tahay weliga allah nolosha weligii nolosha ka quusanina qof asaagiina ha baryina waxaan kaloo idin leeyahay dad waxaa jiro ayaga naftigooda taal oo yani oo talent leh oo haddii ay hore u socaa dhileedna aan hore u socdo aan socon karino sababtoo ah waa madaxa looga taagan yahay afatabena waxaa arkaysaa qof ilaahay hibisii hibadiisii banaanka aduu keen lahaa qof baa ku taagan afatabena hadda dad badana iska heesaan Hargeyso Somaliland waa tagtay sooma waa kusoo kortay sooma ninka caseeyaa ah ama gabadha caseeyaa ama wiil gaariga dhaqaayo ama shacabka dhan magaalada joogo ma og tahay Somaliland all evidence macala musbix ku dar waay saato ku dhaw coduu leeyahay markii lagu leeyahay hooyga fanka lagu leeyahay wallahi markaas aan u qiray yar ma taqaanaa viewskiisii asoo bilaa music wuxuu gaaray 1 million above 2 million ku dhawaay habaasku ishayda ma qabto iyadu imi horseed heeska soo qaad mugtay ileen hooy kun bogsiiso marka dad badan waxaan arkay cunugii iska heesayo baaru dhaqayo annaga haddaan array xamar aan soo jeestay weligiina xumaada daartiin anigu run iigu imaada wallahi dameerkii qeelanaya baa loo sacbinaya marka ilaahay waxaa idinkaga baryaa Somaliland dhan faan aysan noqon hadday noqdaan anaga dhan waa ebra noqonayna ilaa murti ku meesne maxaa murti ku meesna ishag isii tiri skena iri soo saatiri waa soo saana wax soconay ma waslan gusti baadare marka waxaan dhihi lahaa ya ilaahay ku duceysta Somaliland shacab ku nool inay hees faanin noqdaan ee noqonin ku duceysta cita taani dhigaysan Somaliland Allah naga hayo marka maxaa la istaageera hore u socda leedahay mise maxaa la rayirta marka ma ku noqono waanadii aan ku noqono waanadii loogu soo xigay marka waanadu aan ku soo xiraa waxay tahay niho naftaada ku kalsoonaa ilaahay baa wax bixiyo bilaadan wax ma bixiyo rabbigii ku untay soo ma ogid habeenkaa dhalinaysa ama aadana inta marka caloosha ku jirto xab iyo biya ahayd wax walba lagu qoray fiiri cunuga marka saan u dhasho caana ma waayo samaawaadka loogu soo diray ma garata marka waxaan dhihi lahaa nolosha laga quusan
wax qabsada isku filnaada farfiri kalsooni waa shay muhiim waaye aniga ii jidino foolxumo badan oo goomanka madow ninka cad inaan qurux badan oo malayaani kii haddaa idin sheegay ilkiisa adin sheegay markuu afka qabo markuu maawo ilkaa inta imaanayeen hadda birow igu xirtabo oo inta imaanayeen oo markuu af isku dabool maagabo ilkaa inta yaalo oo tixsi qabana oo leeyahay marka waxaa leedahay hadduu kaa isku kalsoon yahay isku kalsoonaada isku kalsoonaada ha midda kate midda midka kale ha caawiyo walaalkiis sida adduunku way jecel yihiin ma ogtihiin adduunka kale waxaan kaga fiican nahay aniga adiga seerta najiib dj najiib meel wada fadhiisano shaa ma cuntaa la cunaa kul waa laga yaaba xifsi inaad istagto wixii wada dhiibtid laakiin adduun kale jaabkaada ku tashaa kul waxaa loo keenaa rasiida loo qofaa loogu keenaa ma garata meeshaana halna wixii dhan inta wada qabto wada bixinayo marka dhalinyarada waxaan le waalayaal ha quusanina hana baashi quusa dhigina socda aniga waan daalay anoo retire oo daalan oo maskaxdii dhan buuxdo waan socdaa nolosha weli kama quusan waa ordoyaa waa fatamina weliga allah inta gaajo ku qabatay suunkaaga saa marba uduleelinaysa dhexdii wiilkay qadar maleekaaday waxaa ku sixis marka waxaa idin dhihi lahaa waalayaal nolosha ha ka quusanna taasna waa isoo martay noloshaa laga quusanne wax walboo la bixina ogow faqiirow ninkaa taajirka ah ilaahay taajirkaa ma dhigo ninka taajirkaa ujeedid adduunye iska dhaaf aakhira markii ta xisaabaad sugayso keliya ku daceyso saddexda waqtiaa cun laheyd iyo wixii daawo ah adiga noloshaa in kooban keliya inaa hesh ku xeetan laakiin ha ku barato ilaa hantiila iga dhig haddaa hantiilo noqoto waxa waaye rabbi subxaana watacaala waa kula xisaabtamaa maalkaas waa lagu leeyahay marka waxaa idin dhihi lahaa ilaahay wax nagu filan nasiib anaa waxaan dhihi jiray ilaahu haddaa shaqo ii waysid asxaabtay shaqaa weyn ilaa anagii asxaabtaan shid wada noqono oo lacag laan nagu dhacdo yaa laga qaadanaa anaa shid waxaa baashi seertaa untaga waxaan leeyahay seertaa waa iga jabantay maanta shalay iyo habeen hore labeesa tuntee wax ii tur suuciya kal ku xigay najiib wax ii tur afatabana marka waxaan idin dhihi lahaa nolosha ka quusanno hor u socda hana tuugsanne iyo gacmaha idin dheeraan kala xab idin dheeraan taa hadday dheerato lagama daba tegi karo thank you